Gabadhan waa Mrs. Wall waxay ku riyootay habeen waliba iyadoo la cadaabayo jirkeeda maadaama iyada oo xiran dhar khafiif ah ay aaladda TikTok ka dhex niikiso dad badan oo muslim ahna dhibsadeen. Subxaan Allah, tani waa arrin musiibo ah ee haysata Mrs. Wall. Like saar muuqaalka daawade, fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed sheer dheh oo gaarsii walaalaha Soomaaliyeed si arrintan musiibada ah ee haysata Mrs. Wall ay u arkaan. Sidoo kale gaarsiiya gabdhaha kale ee Soomaalida ah ee la midka ah gabadhan si ay kaga haraan waxyaabaha alla uga caroonayo ee ah muuqaalada ansho xumada ah ee TikTok ay ku soo bandhigaan. Haddaba gabadhan aragtay iyada oo jirkeeda la cadaabayo, maxaa la gudboon talahaana fikirkaaga qaybta commentiska waa uga dhiiban kartaa daawade. xaaladan gabadhan haysata waxay ku dhici kartaa qof kasta ama gabadh kasta oo ku jirta social media. alla muruga weynaa. Magaceedu waa Najmo Khalifa Warsame, waxaa loo garan og yahay Mrs. Wall. Waxay ku dhalatay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxbarashadeeda waxay ku soo qaadatay waddanka South Africa. Najmo ayaa sanad jirsatay inta ay ku dhex jirto aaladda TikTok oo Soomaalidu ay ku baratay. Najmo ayaa ku soo shaac baxday iska duubidda muuqaallo anshaxa ka fog. Sanada ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii Mrs. Wall ayaa ka soo muuqatay barteeda TikTok. Waxay ka soo gashay live iyadoo qaawan oo nuuda. Waxaa haystay stress baan oo ka dhashay furiinkii lama filaanka ahaa ee Doni B. Inta aysan soo gelin social media waxay gashay Najmo xaalad aad u liidata. Waxa ay xoortay dharkii ay xirnayd. Dhaqaatiir badan oo loo geeyay ayaa sheegay inay haysato psychological problem, xanuunka dhanka maskaxda, kaasi oo haddii loo diido waxay rabto sababi karo inay waalato ama dharka tuurato. Najmo ayaa habeenada ka mid ah soo gashay barteeda TikTok iyadoo dhar la'aan ah. Waxayna furatay afka iyadoo ka sheekaynaysay qaabkii u dhacay furiinkeedii kadiska ahaa iyo jacaylkii waalida ahaa ee ay u qabtay ninkeedii hore ee Doni B. Waalidkii dhalay Najmo ayaa go'aansaday in loo sameeyo wax kasta oo farxadeeda, waana sababta keentay in hooyadeed ay ku fiirsato qaabdarrada ay ku sugan tahay gabadheedu. Aabaheedu waa dhintay, Allah u naxariistay. Waxaa booskii aabanimo u buuxisay hooyadeed. Sheekada aan rabo inaan kula wadaago waa mid qarsoodi ah, waana xaaladda dhabta ah ee hadda ku sugan tahay walaasheena Najmo oo loo garan og yahay Mrs. Wall. Najmo oo ah gabar yar oo wadata boqolaal warqado caafimaad oo cadaynayo inay tahay qof xanuunsan ayaa ku sugan hadda xaalada ka duwan midii aad ku ogeydeen. Najmo oo ah gabar jirkeeda bannaanka keento in ka badan hal sanana ka dhex niikinaysay TikTok oo ku joogto salkeeda iyo horaadadeeda ayaa la kulantay dhowaan sida ay noo xaqiijiyeen saaxiibada ay caysh wadaaga yihiin marxalado kala duwan oo ay ugu daran yihiin inay ku riyootay iyadoo la cadaaba weliba si arxan darra. Subxaan Allah, Mrs. Wall ayaa iminka qaati ka taagan hurdo la'aan iyo cabsi rabaani ah. Waxa ay sheegtay in hurdada ku aragto iyadoo la cadaaba weliba dhexda kaga jirto god weyn oo mugdi ah oo geesihiisa oo dhan ay ku wareegsan yihiin qodxo iyo waxaad koronto moodo. Gudaha godka waxaa yaallo cirbado dhulka ka soo taagtaagan kuwaasoo aan suuragelaynin in lagu dhex socdo. Sidoo kale godka waxaa ka dhex shidan dab aad u kulul oo dhulka iyo cirka qarinayo inta u dhaxaysa. Mrs. Wall ayaa sheegtay inay soo toostay iyadoo dhidide oo neeftuure oo ay ka muuqato cabsi badan. Waan iska ooyaa anigoo xabeebsan ayay tiri. Subxaan Allah. Kadib mucjisadan rabbaaniga ah ee la tusay walaasha Najmo ayay go'aansatay inay joojiso dhaqankii qaabta darnaay ee ay ku dhaxaysay bulshada Soomaaliyeed iyo gebi ahaanba bulshada muslimiinta. Waxaad arkaysaan maalmahan dambe Najmo oo wadata dhar asturan akhrinayso qowlka Eebe oo ay ka muuqato khushuuc iyo alla ka cabsi badan. Laakiin ma isweydiisay sababta ka dambeysay hanuunka walaasheen Najmo oo loo garan og yahay Mrs. Wall. Ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo, mana jecla in la dulmiyo. Inaan alla ka cabsano oo aan xasuusnaano xilli waliba waa sababta alla noo abuuray. Allahna waafajiyo tawfiiqda. Aamiin dhaha walaalayaal. Najmo ayaa codsanaysa in loo soo duceeyo oo alla loo baryo si Ilaahay uga badbaadiyo cadaabka ay ku riyootay. Subxaan Allah yaa cadiim. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay ka dulqaado dhibka haysta walaasheen maadaama ay toobad keentay oo ay ka toobad keentay waxyaabihii markaasi dembiga ahaa.